This is Borough Market in South London. This food market is very old. It's lunchtime on Thursday and the market is busy. The market is only open on Thursday, Friday and Saturday. Visitors love Borough Market. It's full of delicious food and drink. There are over 100 stalls at the market. People from different countries work here. Many people sell food from their own countries. They all speak English. And they speak a lot of other languages too. Hi, my name is Mariana and I'm from Greece. My name is Aurore and I'm from France. Really French name. My name is Sofia. I'm from Portugal. My name is Magali and I'm from Mauritius. My name is Michelle and I'm from Switzerland. My name is Fabien and I'm from France. What food do you like? Do you like cheese? Michelle sells cheese from Switzerland. I really like cheese, but I dislike seafood. Fabienne sells delicious cheese from France. I love cheese and I don't like coffee. Do you eat meat? Graham is English, but he sells meat from Wales. He loves Welsh lamb. Hello, sorry. Teacher, waxay yiri isku day karaa inta ka fahmay aniga dhageysti. Waxa uu socday network iga yara baxda ma dhamaanin marka waxaan rabnaa inaan hal mar aan dhameeyno kadib aan waxa weydiinaa intaanan fasirin qof walba wuxuu ka fahmay. Okay. Okay. Sofia. I'm from Portugal. My name is Magali and I'm from Mauritius. My name is Michelle and I'm from Switzerland. My name is Fabien and I'm from France. What food do you like? Do you like cheese? Michelle sells cheese from Switzerland. I really like cheese, but I dislike seafood. Fabienne sells delicious cheese from France. I love cheese and I don't like coffee. Do you eat meat? Graham is English, but he sells meat from Wales. He loves Welsh lamb the best. I really like roast lamb. I really don't like aubergines. Some people don't eat meat, but they eat a lot of fruit and vegetables.
There's fresh bread and delicious cakes and sweets at the market too. Do you like tea? The English love tea, and the best tea is from India. Ratan sells Indian tea at the market. He makes tea for all of his customers. They love it. Fabio and Robert don't like tea, but they both love coffee. They make the best coffee at the market. A delicious cup of coffee costs £2.30. Every year, over 4 million people come to Borough Market. They try delicious food from around the world, and sometimes they find new food they love. Okay. I think horena u dhageysateen mar kalena hadda waa wada dhageysanay. Taas sax soo ma? Yes. Yes. oo qof I think markay hadlayaan qoraalka iska dhaafaan soo diray laakiin waa fahmi kartiin soo ma mise meelaha qaar aan la fahmin. Teacher meelaha qaar aan fahmin marka waxaan rabay hal mar inaan noo dul marto saan u wada fahno wixii naga qaldan ay noo saxmaan. Okay, good. Mawlid maxaa fahanta adiga? Teacher inta ka fahmay aliga dhigeysta. Just waxbana ha fiirinin, buugna ha fiirin, meelna ha fiirin. Recall waxa xasuuso ka tala sheeg qasab ma qoraalka ina fiiriso. Horta qofka intuu ka fahmay laga dhigeysta. Teacher waxaan ka fahmay meesha oo casharka inta ka bilaabanayo waa bilowga this fruit market. Bara market. waxaan ka fahmay meesha waa suuq fruit wuxuu ku yaalaa London yani koonfurteeda. صح qadka ka xun marka waa sharaxeena qadka ka xun waa maqli kartiin soo ma? Yes teacher oo ku maqalnaa. Video transcription macnihiisu waxa waaye videogii oo la qoraal ahaan loo bedelay. Transcription waa wax maqal ahaayoo qoraal loo bedelay. This is Bara Market and waa Bara suuqa Bara in South London ee ku yaalo koonfurta London. This food market is very old. This waxaa lagu tilmaamaa markasta. This food market suuqani cuntada is very old waa mid qadiimi ah. Old waa qadiimi duq. It is lunch time on Thursday and the market is busy. Waa waqtigii qadada. Lunch time waa waqtiga qadada on Thursday maalin khamiis ah and the market is busy. Suuquna waa mashquul. The market is only open on Thursday, Friday and Saturday. Suuqu wuxuu kaliya only waa kaliya. Suuqu wuxuu kaliya furan yahay open uu furan yahay on Thursday Khamiista, Friday Jimcaha and Saturday iyo Sabtiga. Visitors love Bara Market. Visitors waxaa la dadka soo booqanayo booqashadayaasha dadka soo booqanayo. Love Bara Market waxay jecel yihiin suuqa Bara. It is full of delicious food and drink. Waxa ka buuxo
cuntooyin macaan iyo cabitaano macaan. Delicious wax fiican oo macaan oo tasty lah la cunto tasty leh oo dhadhan leh delicious la dhahaa. There are over 100 stalls in the market. Waxaa jira in ka badan 100 sandaqad suuqa dhexdiisa. Stall waxa waaye booth or a small waxa waaye meel yar oo wax lagu gado. Okay? meesha yartaa dukaan yar oo wax lagu gado sandaqada lahaa Soomaaliga waa fahmi kartiin dukaan yar a small shop stall ah. So there are over 100 stalls in the market. Waxaa jira in ka badan 100 sandaqadood suuqa dhexdiisa. People from different countries work there. Dad ka imaaday wadamo kala duwan. People waa dad from ka yimid different countries wadamo kala duwan. Countries waa wadamo different in kala duwan. Work there ayaa xagga ka shaqeeyo. How many people sell food from their own countries? Sorry, how many meesha kuma qorno. Many people sell food from their own countries. Dad badan ayaa ku gada food from their own countries. Cunto ka timid wadamadooda. They all speak English and they speak a lot of other languages too. Dhammaantood waxay ku hadlaan English oo haddana waxay ku hadlaan luqado kale oo badan sidoo kale waxay ku hadlaan luqado kale oo badan. Other languages luqado kale a lot of badan. Miriana ayaa hadlayso la wareysanaya. Hi, my name is Miriana. I'm from Greek. Hi, magacaygu waa Miriana. Waxaan ka imid Greega. Aqooqe naagtan Faransiis waaye. Aniga haddaa caadi u aqrino Aurore ay noqon lahayd laakiin ayada waxay ugu dhawaaqday magaceeda Aqooqe. Okay? Aqooqe, special Aqooq itri. My name is Aqooq. Magacaygu waa Aqooq. I am from France. Waxaan ka soo jeedaa France. A really French name. Magac dhab ahaantii Faransiis ah. Sophia ayaa hadlayso waxay tiri my name is Sophia. Magacaygu waa Sophia. I am from Portugal. Waxaan ka soo jeedaa Portugal ayaan ka soo jeedaa. Magali ayaa hadlayso waxay leedahay my name is Magali. Magacaygu waa Magali. I'm from Mauritius. Waxaan ka soo jeedaa Mauritius ayaan ka soo jeedaa. Michelle ayaa hadlayso waxay leedahay my name is Michelle and I'm from Switzerland. Magacaygu waa Michelle waxaan ka soo jeedaa Switzerland. Fabian ayaa qaata hadalka wuxuu yiri my name is Fabian and I'm from France. Magacaygu waa Fabian waxaan ka soo jeedaa France. What food do you like? Cunto noocee ah ayaad jeceshahay? Do you like cheese? Miyaad jeceshahay cheese? Waxa waaye burcadka cuntada burcadka ma jeceshahay? Michelle sells cheese marka waxyaabo badan lagu apply gareeyaa. Cuntada dusha looga shaqaa. Pizza oo kale cheese-ka korka looga shubaa. Michelle sells cheese from Switzerland. Michelle waxay gadaa cheese ka imaaday Switzerland. I really like cheese but I dislike seafood. Waan jecelahay dhab ahaantii cheese-ka laakiin waxaanan jecleen. Dislike waa jecel, dislike aanan jecleen. Seafood cuntada badda ma jeceli. Fabian sells delicious cheese from France. Fabian wuxuu gadaa cheese dhadhan leh oo France ka yimid. I love cheese and I don't like coffee. Ma jecli cheese-ka. Mana jecli coffee-ga ama qaxwada. Do you eat meat? Miyaad cuntaa? Do you eat ma cuntaa? Sorry, meeshaas rabaa inaan geliyo. Labadaas quote. I love cheese and I don't like coffee. I love cheese and I don't like coffee. Ayuu yiri. Do you eat meat? Miyaad jeceshahay hilibka? Graham is English. Graham waa English. English waxaa la dhahaa dadka Englandka wadanka England u dhashay English la dhahaa. Is English waa English but he sells meat from Wales. Laakiin wuxuu gadaa hilib ka yimid Wales. Wales waa wadan yaroo ku yaala koonfurta UK. He loves Welsh lamb the best. Wuxuu jecel yahay hilibka laga soo qaaday idaha yarka ah ama laxda yarta ah ama wanka yarka ah ayaa la dhahaa lamb. I really like roast lamb. Waan jecelahay dhab ahaantii hilibka laga keenay idaha yarka ah ee la dubay. Roast waa duban. Lambina waa hilibka laga soo qaaday idaha. Okay.
I really don't like aubergines. Ma jecli aubergineska ma jecli. Aubergineska waxa waaye fruit vegetable ahaan loo isticmaalo oo purple ah oo xoogaa yara dheer ayaa la dhahaa aubergineska. Marka wuxuu yiri I really don't like aubergineska. Okay. And so there is this one we have. Do you see fruitkas mujidin? Fruitkas ma aragtin? Yes, teacher. Fruitkas Yes, teacher. kaasa aubergines la dhahaa marka af Soomaaliga da u raadi kartiin u raadiya hadii kalena aubergineskiisa ugu waca. Aubergines la dhahaa waa fruit yar oo lagu darsado cuntada. Kulli anaad afsoomaali uma hay laakiin waa raadina. Do you eat meat? Hadartinda waa la Soomaaliye karaa. Waxyaabo badan oo Soomaaliyees u baahan jiro. Graham, I really don't like aubergines. Ma jecli aubergineska dhab ahaantii. Some people do not eat meat. Dadka qaar ma cunaan hilibka. But they eat a lot of fruit and vegetables. Laakiin waxay cunaan fruits badan, fruitka iyo vegetables iyo qudaarta cagaarka ah vegetables la dhahaa. There is fresh fruit bread waxa jiro roti fresh ah and delicious cakes iyo doorshe macaan and sweets iyo macmacaan kale at the market suuqa too sidoo kale. Do you like tea? Ma jeceshahay shaaha? The English love tea and the best tea is from India. Dadka Englishka ah waxay jecel yihiin shaaha. Shaaha ugu fiicanna best waa ugu fiican. The best tea shaaha ugu fiicanna is from India. Wuxuu ka soo jeedaa India. Ratan sells Indian tea at the market. Ratan wuxuu gadaa shaah India ah ama India laga keenay suuqa ayuu ku gadaa. He makes tea for all his customers. Wuxuu u sameeyaa shaah ayuu u diyaariyaa ama u sameeyaa dhammaan macaamiishiisa. They love it, way jecel yihiin. Fabio and Robert do not like tea, but they both love coffee. Fabio iyo Robert ma jeclo shaaha, but they both love coffee. Laakiin labadoodaba waxay jecel yihiin qaxwada ama coffee-ga. They make the best coffee at the market. Waxay sameeyaan qaxwada ama coffee-ga ugu fiican ayay suuqa ku sameeyaan. A delicious cup of coffee costs 2.3 pounds. Cup qaxwo ah oo macaan wuxuu gooyaa ama qiimihiisu uu yahay 2.3 pounds. 2 pound iyo 30 lacagta jijirkeeda. Every year sanad kasta every year sanad walba over 4 million come to the Bara market. In ka badan 4 milyan ayaa imaato suuqa Bara. They try delicious food from around the world and sometimes they find new. They try delicious food. Waxay isku tayaan cunto macaan from around the world ay ka imaatay dhammaan adduunka daafihiisa. And sometimes they find new food they love. Mararka qaarna waxay helaan cunto cusub oo ay jecel yihiin. Wax su'aal ma jiraan? Any question? Okay, welcome. If there is no question jira aan ka jawaabi rabno. Haddaysan su'aal jirin, there are some questions we are supposed to answer. Waxaa jiro su'aalo ka imaanaya cashirkan oo inaan ka jawaabna la rabo. Okay. So I'll take you back and screen-ka hore ini qaadaya. So the first question waxaa haysanaa question 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Waxaan rabnaa marka question 1 qof ka jawaabo. Question 1 qof ka jawaabo. Okay, Hussein question 1, question 2 Hafsa qaado adiga. Hussein question 1, Hafsa question 2, ay question 3 ya qaatay. Question 4 iyo 5 ya qaatay. And I don't know codkayga ma halaysan dadka ma codka halaysan yahay ama dadka internetka xun haysto.
waxaan rabaa question 3 inay qaadato manaal question 3 ayaa qaadanaysaa question 4 waxaa qaatay Mawlid question 5 na waxaa qaatay Nadia Hussein question 1 aqri waxaad tiri teacher can you read question 1 okay this is the market in South London may kii hore le bas ma u jeedaa ma ka beddelin miyaa wali maya kaasaan u jeedaa ma ogtaa masaado ku furan yahay yaa arko complete the sentences use the correct waa u jeedaa kaas waa u jeedaa marka waxaan rabaa question 1 inaad ka jawaabto in South London so wuxuu ku yaalaa near London North London in London labadaas mid saxa u dhow Bara market is near London Bara market wuxuu u dhow yahay London North London ayuu ku yaalaa in London London ayuu ku dhex yaalaa North London iyo ma ku raacdeen mise waa sax mise waa qalad yeah and meeshan haddaad fiirisiin this is Bara market in South London South ayuu ku yaalaa dheen koonfurta markii aad meesha akrinayseen intana adina waxaa tiri north ku yaalaa marka qalad ay noqonaysaa north ma noqon karo horta hore okay wax kale isku day near ma doorane London inuu u dhow yahay mase in London inuu London in iiga dhig in ayaa sax noqonayso number 2 waxa ku jawaabaysa Xabsa Yes. Number 2 isku day Okay. The market is busy. The market is new, busy, small. So busy at Dorsama. Yes. Okay. The market opens every day, 3 days a week, every morning. Midesaha. Manal. The market opens every day, 3 days a week, every morning. 3 days a week. Okay, 3 days a week. Number 4, there are over 100, over 200. Maulid midesaha. Maulid, this is your question. Maulid, this is your question. Which one is correct? Teacher. Okay, Habs is good day. Over 100. Over 100. The people selling food speak English, do not speak English, speak French. Nadia midesaha. Teacher of 100. Haduu soo dhacay waa laga jawaabay su'aashaadi adaa maqneed Nadia haduu soo dhacay the people selling food maxaa waay numberkaas isku day Speak English. speak English so I think waa saxna gurtigood wax walba waa sax sida aragtiin 5 over 5 tick so everyone wuu saxay okay that was good and so we have then and complete the sentences and choose the correct alternative. Michelle seafood. So marka
questions waxaa loo qaybsanayaa question 2 ana qaat question 2 Hussein qaatay question 1 2 3 4 5 so dad cusub aan rabaa waxaan rabaa Ilyas hadduu isku dayi karo cashirka uu ku jiray ha isku dayo Ilyas ma isku dayi kartaa waxaan rabaa oo kaleeto inuu isku dayo ayaan codkii saxan waaya ayaan codkaaga inaad saxato sida u saxatid ila soo hadal aan ku saxa codka hadhowdi casharka markuu dhamaado marka question 1 waxaan rabaa inay sameyso Manaal question 2 waxaad qaatay Hussein question 3 waxaa iskale Mawlid question 4 waxaa iskale Xafsa question 5 waxaa iskale Nadia because inta kale ma hadlayaan qofka hadli waayo asaga meesha ku su'aal beelay question 1 waa lagu maqli waayo caaw baadiya adaa umaleyna question 1 isku day Michelle does not like seafood which one is correct does not like mase likes midka saxa Does not like. Good. Question 2 Hussein isku day Graham is from England Wales and su'aasha sax miya number 2 qof kale ma isku dayi kariyaa so question 3 askale the English love coffee or tea which one is question 3 isku day qofkii iska lahay question 3 Mawlida iska lahay adi question 4 aan leedahay Xafso question 4 question 3 isku day Mawlid the English love coffee question Mawlid ha looga leexdo question kaas oo loo soo laabanaa Xafso question 4 ka isku day a cup of coffee costs 2.13 which one is correct 2.30 okay question 5 waxaa iskale Nadia question 5 Nadia every year meeqadada soo booqato meeshan 4 million for every year 4 million people visit the market sanad walba 4 milyan oo dad ah ayaa booqdo suuqa okay and number 2 isku day Hussein mar kale cashirka ku laabo igey cashirka meeshan waxaa ku qoran cashirkan ku soo laaban ma aragtaa waa u jeedaa do you eat meat ayaa la dhahay do you eat meat Graham is English Graham is Englishka waa dadkee ma taqaanaa dadka oo Britishka waa Britishka London degan oo Britishka English la dhahaa marka hilibka uu gado laakiin intuu ka imaaday Wales ayuu ka yimid hilibka uu gado the meat he sells from Wales marka adiga waxaa lagu gashay meeshan Wales iyo England lagu gashay so adiga waxaa dooratay Wales hilibka meeshu hilibka uu kaga imaanaya umalayso in asal u dhashay Graham is from Graham wuxuu ka soo jeedaa lagu dhahay England uu ka soo jeedaa maadaama uu English yahay so way ku gaadeen marka ma fahanti way igaadeen so question 3 waxa iska leh Mawlid question 3 Mawlid iska leh Mawlid maanta waxa umaleynaa geed korkiisa inuu saaran yahay inkaas gaari korkiisu cashar ku fiirsaday bal qof kale isku day qof kale isku day coffee the English like coffee ma ku raacday Manaal taas ma sax baa Englishka inay coffee jecel yihiin mase tea jecel yihiin tea ba saxa soo aan ku laabana the English people love the tea the English love tea you see here yes they love tea yes so taas sax noqonayso so answer is correct and that's good trial as sameynay so I hope su'aalahan okay
I want to ask one question, Marka. Where does the best tea come from? Where does the best tea come from? In India. It is from India. It is from India. It oo shaax u taagan is from India, okay? Is from India. The best tea is from India. Are we together? Yes, teacher. Yes. The other question I will ask you is, okay. Do people sell food from their own countries? Do people sell food from their own countries? Do people sell food from their own countries? Do haddii ka bilaabato su-aasha waxay noqonay no or yes su-aal ay From noqonaysaa. different countries. Yes. So marka waxaa leedahay hadday sax tahay jawaabtaada hadday gadaan cuntooyin kala duwan oo wadamo kala duwan ka imaadeen waxaa leedahay haa way gadaan oo waxa macnaheedu tahay yes they do. Haddaysan gadana waxaa leedahay no they don't. So question waxay ahayd do people sell food from their own country in the Bara market? Do people sell food from their own country in Bara market? People, yes, they do. People sell food from their own country. Jawaabta sidaas ay noqonaysaa. Okay. Which days is the market open? Which days is the market open? 3 days. 3 days. Which 3 days? I want to know. Friday and Saturday. Yes, I want those days specifically. I want you to mention the days which the market is open. So your answer should be the market is open on Thursday, Friday, and Saturday. Okay. Okay. Is the market old? Is the market old or new? Is the market old or new? Market. Old. Yeah, the market is old. The market is old. Okay. Okay. Now I want you to answer the following questions. And in your city, do you have a food market? If your answer is yes, what is the name of the market? In your country or in your city, do you have a food market? If your answer is yes, delicious. It's delicious food and drink. 3 are over. Okay. Again. waxaan rabaa su-aasha marka hore in la fahmo. One waxaan dhahay, do your city, magaaladaada, does your city have a food market? Magaaladaadu ma leedahay suuq cunto? Ha haddaa i dhahday, I want you to name the name of the market. Magaca suuqa ii sheegaysaa. Markaas kadib aa leedahay cuntooyinkaas lagu gadaa suuqeena. So you say, for example, our city has a food market. It is called Bakara Market. In Bakara Market, there are different foods which people sell, such as we sell ambulo, we sell sor, we sell rice, we sell tea, we have meat, we have seafood. Also, there are people who sell coffee. You see? Sambus. Okay. Samosa. They say samosa. And samosa bread. They sell bread. Roti. Bread is roti. Okay. And so in your market, you can hadalka inta ku qornay adoo tegaysid wax ka soo qaadan kartaa suuqaada waxa lagu gado hadaa garanaynin Soomaaliya leedahay. Cuntada oo localka inta badan English looma hayo. Hadda cambuulo Soomaali un baa laga karsadaa. Englishka cambuulo ma karsadaan. Wadan kastana wuxuu leeyahay magacu uu haystaa, ma fahanti? So teacher casharkan oo hadda na siisay intaan ma aragtay Soomaali iyo magaalooyinkeeda iyo waxaan ku bedel sheeko ma ka samayn karaa? waa ku bedeli kartaa.
meesha bara oo market sidii suuqina u bedeli kartaa wax walba oo suuqin lagu gado xamar anoo kaga hadlaya camal xamar hadda suuqa bakaara intuu kaga yaala centerka ma kaga yaala meeshuu kaga yaala waa xagee meesha gelinaysa wixii tartiib saas u kala bedelaysaa mid walba meeshiisa gelinaya okay wax su'aalaha haddaysan jirin cashirka waxaan rabnaa inaan insha Allah halkan ku ekeeno beriyan kulmeynaa waxaan bilaabi doonaa unit 6 hadda unit 5 aan noo dhamaaday unit 6 aan bilaabina hadduu ilaahay do insha Allah teacher okay habeen wanaagsan haddaysan su'aal jirin insha Allah xabsi iyo kulli su'aal ma qabana umaleyna okay good night good night